بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميل البادونك كتشوكتان أو نقد داونا سامبا كسر هذا التيفي عالمي سومالي channel وبرنامج كني دلس أنا على بقلب البوتش معاه حليدا أنا كله أنا هو دي سمرين شرني برنامج كانوا من لجوب بوريني لجونا دي رجلني إن دتكو ذلك هذا دستان بوجه هذا ديدان أي انقلب والبوح بسوق هذانا ميل نسلنا هاي الله له هو مدن هاي وأنا جيني ورمتها يغفد عليه ودنتي زكاة كذا ودلكيسي واحترايا قلبتنا لفديان وغوريو ودوميها قبل كمدو وواحد هاي تدحدنا وحرتي إنه قبل كمدو يملذي سجارسيو عندنا عكله وأحمد محمد وأكمل وضياشة مقالة قرعد يو عذير كان أحمد ورسمة ومحمد ورسمة ومقالة قرعد هي تاريخ هذا واحد بدنا نوقش كرا سدة سنة أيكون ولا وبدأ قروح ذا بدن يقرأ أنا قروح ذا بدن عبري عافمات دير الله سيو يعني واحد بدن بنوقش كرا بس أنا كسر مرة هرتا ما أنت وقرعد بدقرن كرتا خيراتك إيو معاذ كتير تبدأ dadku inta saaga gacanta ula galaan kalluun kala soo baxayaan laakiin adeer baan ku bilaabay adeer garaaca taariikhdeedii wax yar nooga taabo garaaca taariikhdeeda markaan idin taab 8 sano baan wax garanaya oo joogo waxay ahayd meel barwaaqo badan oo bad iyo biri hodanka ah وأدونك ماشي مو خير بدن مرسد هذا أنا حتى ولا تشوفه ولا تشيله يماشي عيتها يصير إلى هاي وأبو بس ماشي لو تشيل وحيله ده واحتراب بدن وخيرات وها إلى تربنا وخيرات ككتير إلى تربنا أنا وقلب سعانية يعني وقتي حتى مدة اللي جت شغل 20 سنة 60 سنة نين وحانو ميل دو او حيبة كقراني آركوستو وحو ولا لو كالي خيرات كان بدون بدأ عن كهر إلى سوتشي وأن لسوت إن لسوتشي لان طبعا وحي كوتشي ده شيء أنا هذا مقعي سجراني أنا ملاين إنه تندل طلعها وكوكو صدح ميلود بيتالا من مركان لسه بحي لبادي كلا وحاري ما بحين كرو ورتان بحين ويني ووحوي ولا لو بلاها تريه إلى شي تشوف النصر راسلي مسلم بو راسلي نين كان نين ودن كا ولا شيء ما أهين واجي دجال هاي dadka hada soo galay waa nin muslim ah haddaan haybsadana ma aqoon haybtiisa laakiin waxaan ka imid dhul fog oo kismaayo agtooda magacaaga maxaa la yidhaahdaa uusay baa la yidhaahdaa hadda magaciisa ma garanay qabiilkiisa ma garanay nin muslim ah reer buu raadsado waa la soo saaray shirkad buu shaqeeyay shirkad baa baabuurka intuu ka saaray horta wax soo saarka laga soo baxayo waxaa laga biisay oo ay ka kiilaysteen 300 كيلو وصوصار متأكد. أقرب. 300 كيلو كصوصار. يعني يبقى وضح له بالكلام. أرجو صار. كصوصار. 300 كيلو كصوصار. إنه على. يعني ما عتابة المجد. بس بدن بعرف. يكون عتابة. يعلم هو شيء. بين دي شيء ما يو كما قادن حبت كل جيده كما قاد نمو اهانا نمعدا ودنكو إلهي نسيي با إمكا نسيي حوغا wax waa naga kala daateen laakiin wadanku wuxuu mar labaad dhaxdo waxay haydanaya inuu horumar ku yeegsado gudoomiye mar kale aan kaaga mahad celinaya runtii sida aad barnaamijka nooga aqbashay oo nooga yeeshay intaas inaad u soo martay barnaamijkaana qabsoomo garaacad ku qabsoomo taas laftigeeda waxay tahay fariin ka turjumaysa nimaan waxsanayno waxa la wixii hormuud u ah garaacad wadadii wadaagsan baad wadaan bulshada mar walba waxaad boorisaa inay dulkooda ku kalsoonaadaan soo dhawow horta daldhis maxaa maanta iyo garaacad ka war marka ugu horeysa Abuukar Cawaale waa ku mahad celinayaa markii xigta waxaan u mahad celinayaa bahda barnaamijka daldhis
sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa TV-ga caalamiga ee Somali Channel annagoo ku sugan xeebta hodanka ee Garacad waxaan leenahay Somali Channel ku soo dhawaada xeebta hodanka ee Garacad marka xigta xeebtaan waa xeeb hodana oo qani ah xeebtaas waa xeeb Ilaahay uu barwaaqo ka buuxiyay hadda inta inoo muuqato hareeraheena waxa yaala doonyo iyo waxa saxiimada kalluun ka shaqeynaya ilaa iyo dad kun qof kor u dhaafaya ayaa saaka badda u shaqo tagay barwaaqay ka soo saarayaan runtii baddaasu waxa ay isku darsatay nimcooyin aad u fara badan baddiyo khayraad ka buuxo barrigii iyo barwaaqaysan oo idihii iyo xoolihii halkaan ay ka buuxaan ugaartii iyo deeradii iyo goroyadii iyo isla daaqayo iyaguna barwaaqaysan baddaanu marka fariin bay u diraysaa dadkii lahaa dadka gobolka Mudug degan 1 milyan oo qof waa ay gaaraan waxay leedahay war 1 milyan oo qof baad igu tihiin oo ay leedihiin maxaad ii ilowdeen war maxaad iigu imaan weydeen war maxaad ii camir weydeen war maxaad ii dhisi weydeen war maxaad iigu soo dalxiisi weydeen war maxaad barwaaqada iyo khayrka cagaaga uga faa'iideysan weydeen Abuukar Cawaale waa u mahadcelinayaa khayraadkaas waxaan u diyaar u nahay inaanu ka faa'iideysano waxaan u mahadcelinayaa in alla intii gacan ka geysatay dhismaha wadada wadaagsin waxaan rajaynaynaa kalluunka aanu halkaan ka soo saarno inaanu subaxii uga quraacano ilaa iyo gaalkacyo ilaa iyo galdogobna aanu uga qadayno ilaa iyo 100 milyan oo Itoobiyaana inaanu u iibgeyno ayaanu rajaynaynaa way naga go'an tahay wadada wadaagsin inaanu dhisno annagoo xoolaha ku tashanayno sidoo kale iyaduna waxaan sugaysaa oo aan ku hamiyeynaa muddo fara badan lagu hamiyay dawladihii Soomaaliyeena ay ku fakarayeen inay xeebtan Garacad ka dhisaan dekad inaanu dekad ka dhisno dekad in la dhiso ma ahayn Ameerikaanka iyo Shiinayska iyo aanu ka sugno 1 milyan oo qof ayay dhan yihiin dadka gobolka Mudug degan haddii qof walba kamid ah oo hal dhagax dhigo 1 milyan oo dhagax weeye anigu maanta waa bilaabayaa dhagaxayga dekada Garacad waa ka dhigaya soo dhig gudoomiye halkaas soo dhig wata dekad aad buu mahadsan yahay bismillaahi raxmaani raxiim deesha mudan waxaan rajaynaynaa qof walba oo gobolka Mudug u dhashay haddii uu halka dhagax dhigo mashruuca halka dhagax baa la yiraahdaa Shiinaysna uma baahnin Ameerikaanna uma baahnin isna uma baahnin Arabna uma baahnin innaga isku filan dekada Afrika ugu weyn Garacad waa ka dhisi karnaa nin waxaan leenahay dhuumanayo waa dhulkaagii nin walba oo Garacad u dhashay dhagaxaagii baa laga sugayaa bismillaahi raxmaani raxiim ilaahu noo barakee aad baad u mahadsantahay gudoomiye ما شاء الله وارنتي طلابة كده شمودن ورناك حيدونا أنا قلنا الله له الرد اللي ستارنا هاي ولي أنا قلت سومالي شرنا المثلية ده حي الله وأدقينا وأنا كيف قادنا أنا بورنت هذا يدير قلنت هذا يدقالوا وارنت هذا تاسنا وكل يرنا يا أنا وكل هذا يمجع سومالي شرنا معمولا يكونوا يقول رأي أنا سلاه هذا هذا يهدو بلن قاضي هذا الكذا يمان aad baa u mahadsantahay gudoomiye ku soo noqonaya waxaan ku soo dhaweynayaa Maxamed Warsame Axmed Maxamed Warsame gudoomiyaha gobolka salaamaya mar labaad waxaan salaamayaa Abuukar Cawaale mar saddexaad waxaan salaamayaa telefishinka waan salaamayaa ka shaqeynaya amaamiirta iyo hawlaha guud oo dalka laga hayo iyo deegaamada iyo gobolada laga hayo 14 aan ku salaamayna quraanka cadadiisa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waa ku noqonaya gudoomiyuhu waa mahadsan yahay waa u jeedaan waa dhagax dhigaya waa dadaalaya intii tabartiisa waxaan leenahay khayr iyo xasanaad baan Allah ka siiyo waa sidaas oo aad uga sii dhawaatid nin baa la yiri aaba ma arkaysay saan ninka waranka ugu galay maandhow wuxuu waa intaas oo aad uga sii dhawaatid gudoomiye khayr badan baan ku rajaynaynaa insha Allah bil kariim waa intaas oo aad hawshaada si laba laabtid mar labaad waxaan u ducaynaynaa ninka la yiraahdo ninka la Abuukar Cawaale oo ka shaqeynaya arrimaha badan oo ay ugu horeyso daldhis u soo dhawaado dalkiina dhista uu ku celcelinayo oo inta Mudug ku nool iyo intii ka dhalatay oo dibad iyo dalkaba joogta oo saa loogu celcelinayo waxaan joognaa waa badda hodanka ah ilaahay baa na siistay ninkii raba wuxuu seexanayaa xeebta meesha biyuhu ku dhacayaan ninkii raba wuxuu seexanayaa meesha magaalada bartankeeda tuuga ma leh saqajaannimo ma leh dagaal ma leh waxba ma leh nabadgelyadaas nin walbaana ha ku tala galo dalkiisa inuu u soo noqdo dhisto dadkiisa soo celiyo gaalada iyo caruurta laga baadiyeenayo oo ka soo celiyo diinta islaamka ku soo celiyo dalkiisa ku soo noqdo ninkii dhul raba waa la siinaya ninkii guriga raba waa helaya ninkii bad ka ugaarsanaya waa helaya annaga waxa weeye waa u jeedaanin aaragoosatadii baa la keenaya labaaxii baa la keenaya waxa la keenaya kalluunkii baa la keenaya oo 43 nooc oo kalluuna oo macaan
oo mid lagu bedesho aan la arag baa la soo saaraya waxay u baahan tahay mashruuc hay'ado dal kale uma baahnin gaalo iyo Faransiis iyo hadii ilaag hebelka kiish iyo midna uma baahnin wiilasha haatan aad arkaysaan oo sida Abukar Cawaale uga wacdi gelinaya wiilasha yararka 10 jirada iyo 15 jirada iyo 30 jirada oo ayaga iyo waaridkood iyo gabdhihii kale eed sheeganayaan qaadka dartiis hadday qaadka iska daayaan doonyaha caabishaan shanaagaha dhigtaan maalin walbana $100 ay helaan 20 dhigaan khasnada ku ridaan dekada dhisaan wadada dhisaanin wax walba ayada naga khasaysan oo la soo jeesto waxaan leenahay ninkii dibad jira ha yimaado oo dalka u dhashay oo islaama ma rabno qof aan islaam ahayn waxaan ka hadlaynaa waa muslimka islaamka oo dalka iyo dadka ka dhashay ciidana wax ku leh bari markii waxa weeye nin walba gurigiisa ku cararan u soo carari doona ninkaasaan la hadlaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baa u mahadsan tahay runtii waa fariin muhiimadeeda leh inay dadku isku tashadaan oo boogahooda dhaydaan waa waxyaalaha aan boorino barnaamijka Soomaali Channel garacadna fariintaas aad baan ugu taageerayaa inaysan UNDP iyo hay'adaha Islaamiga cidna u yeeran dhulkan nabadda oo ammaanka anigu aan markaatay ka ahay oo quruxda badan aan waxba laga nasaayaysiin dadka ganacsatada ay ku dhiiradaan dadkii garacad iyo gobolka Mudug u dhashay ay ku dhiiradaan inay kheyraadkan la soo baxaan oo hotel ka dhistaan oo runtii dad badan u soo jiidaan inay meesha yimaadaan insha Allah aad baan fariintaas u dhiirinaya waxa iga xasuusin mudana halka aad nagala socotaan dabcan waa Soomaali Channel iyo barnaamijkeeni Dallis maanta garacad baan joognaa بريتو waxaa laga yaabaa inaan cadala iyo aadan yabaal iyo raagaceel la soo booqano wariyaashiida Soomaali Channel waa mar kasta iyo meel kasta marka waxaan leeyahay war hadii aad tahay nin dadaalay oo dantiisa ka adkaaday oo dalkiisa wax taraya waa Dallis Soomaali Channel TV emailka shaashada ku qoran la soo xiriir waxa laga yaabaa weeyga soo socda qofka martida ah oo wadankiisa wax taraya oo waxqabadkiisa la soo bandhigaya inuu adiga yahay waana u mahadcelinayaa dhinaca emailada sidoo kale dadka boorinaya horumarka magaalada Garacad aad ayaan u soo dhaweynayaa waxay tiri Aamina Cali waxaan joogaa Mareykanka waxaan u dhashay Garacad maba aaminsaniba xeebtaas quruxda badan inay Soomaaliya ku taalo laakiin waa fariin runtii aan aad ugu farxay waxaan bajacalahay inaan soo booqdo aad ay u mahadsantahay Aamino dhinaca emailka nooga soo diraysay magaalada San Diego wadanka Mareykanka gudoomiye warba joogta hadday arkaan xeebtaas quruxda badan oo aan hal qashin lahayn oo aan wasakh lahayn oo aan tuug lahayn موان لأوران كرين ومال أباهن مالجشي ما يعني منكي الصومالي ده هاي نيروبي ساوث أفريقيا اللي جوبه دليل هاي وحنا مالجشين لاقيين waxaan leeyahay marka ugu horeysa waa mahadsan yahay Soomaali Channel iyo bahda Dallis Abukar Cawaale marka xigta waxaan leenahay dhul shisheeye dheef ma leh habeen dhixitin mooyee dadka maalkooda Afrika maal galiyay maalin la leeyahay Zambia lagu dhacay maalin la leeyahay Juba lagu dhacay maalin la leeyahay waxa weeyaan Kenya lagu dhacay maalinba meel lagu dhacayo waxaan leenahay war dhulkan hodanka baa leedihiin waxa weeye Miami Beach tana ka qurux badan xoolaha aad keentaan la idin ka dhicimayo intaana laho ilaashanaysa intaana laho difaacanaysa qof taaban kara lama arko cashuurta aad bixinaysaan oo dalkiina iba ku hormaraya sakada dadkiina iyo ehelkiina iyo qaraabadiisa siinaysaan qaaraanka aad bixinaysaan dalliska aad ka qayb qaadanaysaan wadada wadaagsin baad ka qayb qaadanaysaan dekada Garacad baad ka qayb qaadanaysaan waad maal gashanaysaan cusbada iyo barwaaqada halkaan alla dhigay ayaa dhulka aad joogtaan oo aan cusba lahayn aad u dhoofinaysaan war waxaan leenahay dadaala oo dalkiisa ku soo noqdo oo dalkiina maal gashada annagu inta iyada gudaha joogta waxaan naga go'an inaan naf iyo maalba u hurno sidii dalkaan aan u horumarin lahayn abwaankii Soomaaliyeed oo dhoodaan waxa uu yiri markii uu maqlay dad baa dayax tagay war anagu dayax hadii lagu tagay dayax gacmeed iyo wax kale aan leeyahay waxaan leeyahay buu yiri orgi iyo qabaal aan ku waraabsado marka wuxuu yiri Soomaalida isagoo la hadlaya orgi foolnaya ama qabaal mi ka dhiganaaba toddobaadka dambe waaydan dayax gaarna war wankeena nagu filan war arigeena nagu filan war geeleena nagu filan war kalluunkeena iyo barwaaqadeena nagu filan war dhulkeena aynu ku dhisano war dadka adduunka jooga sida ay u horumareen innaguna waa u horumari karnaa war waxa weeyaan dadka adduunka halka gaaray maalin bayna ka hooseeyeen war kuwaan adduunka badal ahayn war kuwaan barwaaqada aan haysan war kuwaan xoolo haysan waxaan baaq u diraynaa dadka dibadaha jira inay soo noqdaan waxaan u mahad celinaynaa sida gabadha walaasheen oo hadda halka nagala qayb qaadatay gabdhahaas reer Puntland gabdhaha reer Mudug gabdhaha Soomaaliyeed intaba waan u mahad celinaynaa gabdho badan ayaa ila soo xiriiray inay diyaar u yihiin oo soo xiriiran yihiin inay carruurtooda keeni doonaan dhulkan ay Garacad ku noolaan doonaan waxaan leenahay aad baan ugu mahad celinayaa dadaalka gabdhuhu ay wadaan fariintayada kama dambaysta waxa weeye
war nin walba garacad intaysan kaa buuxsamin imow ninkii wax ku darsadaa garacad leh ninkii dhul shisheeya dhistowna dhulkaasaa xoolahaaga aakhirkaaga lagu dhici doonaa aad iyo aad baad u mahadsantahay guddoomiye waa kuu soo noqonayaa dhinaca sidoo kale dhinaca emailka waad nagu soo diri kartaan waa daldis@somalichannel.tv dhinaca social mediadana twitterka waa @daldis@somalichannel weeye facebookana waa daldis somali channel xamdi jaamac oo stockholm joogta sweden waxay tiri maasha allah meeshaas quruxda badan ma Soomaaliya ku taala magaca garacadse macnaheedu muxuu yahay walaalay magaca garacad waa garacad ribe ee horta garacad waa ciid cad weey garacad waa garacad waa ciidaas cad ay marka Soomaali afka Soomaaligu isku dhigmo wax la dhaha jira magaca flagaada ma aha waa hodan shire waxay tiri anigu gabar Soomaaliyeed baan ahay oo joogta Finland waxaan aad uga mahadcelinayaa martayda waxaan kaloo aad u salaamayaa guddoomiyaha gobolka Mudug Master Tigay oo mar walba barnaamijyada horumarinta dhiirigeliya oo ku salaamaya guddoomiyaha ka jawaabi doona haddaan u soo noqono barnaamijka iimayladu way badan yihiin runtii ma wada akhrin karno garacad ilaahay wuxuu siiyey xoolo badan magaalada bannaankeeda baadiyeeda dhinacan kale kalluunkii dekedaan lagu taamayay intaas oo maanta guddoomiyihii gobolka Mudug dhex dhigay ka garacad see uga qayb qaadan karaan waayahay bismillaahi raxmaani raxiim garacad waxay uga qayb qaadan karaan meeshaan waa sida aad u aragtaan carro hodana weeye ilaahay baa nimco dhigay dadkana waxa wax lagu sideeda ninku wuxuu wax ku hormaraa maalkiisa iyo xooggiisa waxay uga qabsan karaan ridii baa joogta laxdii baa jooga sacii baa jooga hashii baa joogta waxa ay leeyihiin oo dhan waxa ka intaa oo maala oo fadhido oo gidi noo muuqato xeebta daaqaysa waxa ka kafayn kara xataa 2-3 bilood oo xilliga aan ku jiraa oo ay badda ka shaqeeyaan baaba ka kaafin ka dekada dhan iyo wadada dhan haddii la waado baddu marbay shaqal adahay oo ay shaqal ahayn waxa ka kaafin kara xoogooda iyo xoolaha oo aan waxba lagu darin qof shisheeya aan loo wacan inta dalka Soomaaliya joogta oo dalka wax ku leh iyo inta haatan dalka joogta hadday isku gacan buuxsato oo cududeeda isku geyso xoogiina waa jooga xoolihiina waa joogaan mid baa lacagtii haya mid baa neefkii haya oo neefku muxuu yahay waa geel waa qaali waa 500 waa 1000 waa 1200 waa 700 ariga neefka ugu riqiisan oo dollar neefka hasha geela 1200 bay maraysaa 500 baa ugu yar haye ariga neefka ugu lacag yar $30 weeye midka ugu sareeyana $70 weeye intaas u dhaxeeya xoogiina waa jooga hadii cadaalad jidho ehelnimo jidho qofka dalka jooga Soomaaliya iyo midka dibadda jooga waxa la rabaa cududayada aqligayaga maalkayaga inaan isku kaashano isku keenno aan wadadayada iyo dekadayada dhisano aan naashisheeye maalkayaga gelin hantidayada gelin caruurtayada gelin aan nala baadiyeyn annagu aan cududayada iyo maalkayaga isa siino oo iswaafajino sida hadda guddoomiyaha gobolka uu dhagax dhigayo nin walba dhagaxiisa la yimaado nin walbaana xooggiisa la yimaado waxaan uga faa'iideysan karnaa si yar markii badiina shaqeynayso maalkiina shaqeynayo cududiina shaqeynayso saddexdaas la iswaafajinaya wassalaamu calaykum intaada ka bixin runtii aad bay u muhiimsan tahay in xoolaheena iyo maalkeena lagu tashado laakiin xoolihii iyo maalkii haddii lagu tashado kolley qaadiid meel uu soo galay qaad kama maqneen dhinacan kalena haddee magaalada garacad ay ku qayilaysa $2,000 xisaab anagu aan sameeyey hadda baaridda way ma jirtee ma la oran karaa garacad inta ay sanadkii qaad ku cunto way dekadba ku dhisan kartaa ما شاء الله وكجوابيا wax sahlan weey anigu ragii qaad ka cuni jiray baan ahaa 2000 ilaa 2002 ilaa 87 qaad baan cunahay aakhir waxaan soo istaagay markii u dambeysay anoo laba xaasle badiina ka shaqeeya waliba nin ciidan ah oo meeshu furin bay ahayd furintana ka shaqeeya inaan isku keeni waayo waa fakiray waxaan ku fakiray inaan labada naagood iyo difaaca iyo qaadka inaan isku hayn karin waxaan doortay marka hore soorta qaadka inaan joojiyo oo fakaro bal marka inaan labada dumarka iyo inaan ciidanka ka shaqeyn karo markaan qaadkii joojiyo waxa ii fursad baan helay inaan dumarkii heshiino aan ciidankiina waajibkayga aan guto oo aanan maalina dib dhicin salaada ilaahay iyo waqtigiina aan tukado aan salaada faralka ahayd iga tagin saddexda markaan isku keenay waa farxay aad baan u farxay mar haddaan gurigayga joogo difaacayga ii nabdoon yahay
maalkii dadkii ii nabdoon yihiin aniguna wixii aan qabo cuqdadii waa iga baxay intaa markaan keenay waxaa suuroobi jiray inaan helo maalintii $100 reerka waxaan ka geyn jiray $20 markaan iska daayana waxaan u kaalmeeyey maxastii gurigayga joogtay iyo marwooyinka waa u kaalmeeyey masaakiintii dariska ilaahayna waa u kaalmeeyey maasha Allah mawtaadkii aan lahaana waa siyaarto siyaaradii baan ka qayb galay waxbaan siyaartay awal siyaaro ma lahayn maasha Allah saamaynta qaadka iyo garacad haddaan u soo noqono haddaan saamaynta qaadka iyo garacad u soo noqono waxaan isleeyahay 99% haddii qaadka iska dayso 99% markay cunto hadday iska dayso kala bar 44 ama 45 oo kale hadday iska dayso dalku inuu dhismayaan u qabo wax badan oo aan moognahay inay imaanayaan oo qabna inaan toosayno aqligu nagu saluuxayo aan aqli badan helayno oo naga maqan waa qaba waxaan leeyahay marka ugu boorinaynaa walaalayaalow meel aan joognaba ama garacad ha ahaato ama dalka dibadiisa ha ahaato ama dalka gudihiisa ha ahaato ama gobol ha ahaato ama degmo ha ahaato ama tuulo ha ahaato waxaan ku boorinaynaa aan joojino waxa maalkayaga iyo maskaxayaga dhuminaya dalkayagana aan dhisano intaasaan ku soo dhaweynayaa aad iyo aad buu mahadsan yahay waa runtii farintaas waa ku raacsanahay haddii la doonayo dal in la dhiso horumar la hiigsado oo diyaarada doolarna dibad loo diro caqli ma aha waan boorinaynaa runtii inkastoo barnaamijka qaadka ahayn dana meelaan joogay qaad kama maqna waan boorinaynaa runtii dadku inay boogahooda dhaydaan oo ay lacagtaas ay dawladaha dariska ugu kaalmeynayaan ay iyagu dalkooda iyo dekadahooda ku dhistaan gudoomiye dhinaca kale wadadii wadaagsan baad wadeen oo hadda runtii meel fiican maraysa wadaagsan iyo dekadan oo isa saaran oo dhabuhuna saas yahay dekaduna saas tahay bal noo qiyaas bismillaahir rahmaanir rahiim waxay ahayd dream ama riyo dadkii hore oo na dhalay ama aan ku abtirsanay awoowayaashii ahaa qarniyo hore ku fakarayay iyadoo halkaan la dego oo dekad laga dhigo oo lagu barwaaqoobo oo badda laga shaqaysto waxa ka mid ahaa awoowarsama aadan dadka wuxuu yiri wareerka oo muduga hoose degan inta laga soo raro xeebta garacad iyo halka la dejiyo sidoo kale Cismaan Yuusuf Keenadiid naxariistii jannaalaha siiye oo odayaashii mudug ka mid ahaa oo halka xeebta badweynta Hindiya ilaa iyo hobyo reerku degan yahay ayaa la yiri wareerka halka ka soo raro halka iyo mudug sare iyo galkacyo u soo rar gabayga hadda taariikhda galay oo uguma guurayo intaas oo mas'uulo oo dhulka sare oo qarfaha uu leeyahay gaajada iyo dayaca iyo wasalaanta iyo rafaad la'aanta iyo aradka intaas oo dhan buu ka sheekeeyay eebow dareensi tolkay xeeb waa dahab buu yiri waa dahab laguma gaajoodo kalluun baan hadda ku soo quraacnay xalay waxaan ku cashaynay aragoosto iyo kalluun iyo shilibis iyo waxa soo dhan oo barwaaqo oo kala duwan waxa weeye madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke naxariistii jannaalaha siiye subxallaah saana lagu dilay diyaaradaas waxay ahayd inuu soo duulo oo uu halkaan garacad ka soo dego oo uu dekad dhagax dhigo oo uu halkaas ka dhiso laakiin mawdka u diiday madaxweynihii qaranka Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre 75 ayuu halkaan yimid isagoo dareenkiisa iyo hamigiisu yahay inuu dekad ka dhiso oo uu dhagax dhigo waxaan rajaynaynaa dreamkaas iyo riyadaas kuwii hirgelin lahaa inta maanta hadda joogto baynu nahay Abuukar Cawaalow adiga garacad waxay ku leedahay wiilkayga dal dhisow dadkayga fariintaada dheeraysa gaarsii oo hay igu soo noqdeen oo hay dhisteen oo hay maal gashadeen oo hay igu soo dalxiseen oo hay igu faaneen oo hay camireen oo hay dhiseen sida dadkii dalkii lahaa ay dhisteen Miami Beach sidii gabadhii lahayd hadda bay u egtahay Miami Beach ninkii lahaa baa dhistay tanaad leedahay tanaad adigu waxa weeyaan iyo carruurtaaduba leedihiin yaan lagaaga hormarin baan leenahay waxaan rajaynaynaa marka wadadaas oo la isku xiray iyo halkaan oo dekadii laga dhisay inaanu Afrika badda aan qabsan doono wadanka ugu hodansan Afrika ugu barwaaqada badan ayaanu nahay dhulka Puntland waxay leedahay xeebta Soomaaliya 3 meelood oo meel bay leedahay waxa weeye inta ay leedahay ilaa iyo waxa weeyaan laasa surad ilaa iyo waxa weeyaan ay leedahay meesha ugu shishaysa gobolka mudug ay leedahay galhagoog iyo inta la midka intaas oo dhan waxa weeye waa labada badood meesha ku kulmaan waa meesha Soomaaliya badeeda ugu khayrka badan waa meesha badda Soomaaliya warshadihii iyo sahankii la sameeyay Soomaaliya oo dhan kalluunkeedu meesha uu ku jiro weeye hadeer laba warshadood oo private ay ku yaalaan warshada Xaabo iyo warshada Laas Qoray waxaan leenahay dadka Puntland dadaalo oo tashada oo dalkiina dhisa oo maal geliyo oo waxa weeyaan meel walba dhulkeena kamid ah aynu camirno hamiga iyagu waxa weeye Abuukar inaanu meeshaan hadii mid walba naga mid ah uu dhagax dhigo mid walba naga midana uu maal geliyo inay noqonayso meel waxa weeyaan Afrika iyo Aasiya iyo Yurub iyo America iyo Australia iyo New Zealand intaba meel looga soo dalxiis tago ayay noqonaysaa baleega hadda waxa shimbiraha iyo quruxda iyo barwaaqada baleega waxa weeyaan gorayada iyo deerada iyo waxa weeyaan idaha iyo halkaan isa saaran war waxaas adduunka waxay salama arkeen
nimcadaas iyo barwaaqadaas aynu ku damaashaadno waxaan baa filayaaba Somali Channel inay soo guuri doonaan oo ay xarun halkan ka dhisan doonaan adduunka iyo dhan laga maamulo oo wararka laga baahiyo oo dal dhisna laga baahiyo waa joognaa ceelka waa joognaa gudoomiye Somali Channel waa mar kasta iyo meel kasta waa anaga ku sugan TV kaliya xabta garaacada wax ka soo tabiyayna runtii aad baan idinkaga mahadcelinayaa waxa iga xasuusin mudan barnaamijku wuxuu idinkaga iibaanayaa magaalada Garacad xeebteeda quruxda badan oo lagu tilmaamay xeebta ugu quruxda badan Soomaaliya waa magaalo nabadeed waa magaalo horumar hiigsanaysa guddigeeda iyo odayaasheedana aad baan ugu mahadcelinayaa waxa iga xasuusin mar kale haddii aad doonaysid barnaamijka inaad ka qayb qaadatid ama aad marti u tahay ama adiguba aad ku sifowday haddii aad tahay mid dadaalay oo dalkiisa ka adkaaday oo dalkiisa wax taraya emailka shaashada ku qoran waa daldis@somalichannel.tv la soo xiriir waxa laga yaabaa maanta waxaanu joognaa Garacad berita inaanu insha Allah meel kale aanu joogno ama Muqdisho ha ahaato ama Hargeysa iyo Garowe iyo Kismaayo ha ahaato magaalada Kismaayo lafteeda aad baan u salaamaynaa barnaamijka daldisna wuu soo booqan doonaa xeebaha waddanka oo dhan insha Allah annagu ahmiyadeedu tahay inaan dadka ku boorino kuna dhiirigelino inay dalkooda dhistaano boogahooda dheedaano asaagood la tartamaano xay iska dhigaano qaadka iska daayaan oo adeer baan noo soo gabagabaynaya adeer 80 sano ka hor alxamdulillah baa intaas ku soo gaartay xay caafimaad qaba waaba kalluunkaan isleeyahay bal khayraad kalluunka wax nooga sheeg kalluunka horta wax khayraadkiisu idinkaga sheegayo uma baahna waa wax ilaahayna siiyey oo meesha ku jira nabcada ah oo halkaan qarkaa laga soo qabsado aniga halkaa ka kor baa igu jiri jiray been ku sheegi mayo muslim baan u warramaya halkaas igu jiri jiray goortaan subaxii u imaaday waxaan ugu imaan jiray aragoosto mase caawa aragoosto ma gelino kalluun duqoobay baa ku jira oo isagii baa ka saaray waa ka baxaysaa marka wadda soo baxay kalluunkayga qaadan jiray waa ka sii jiray aragoostadana subax walba halkaasaan igu jiri jiray roon weyn baa liyaa waa jiri anna halkaas igu jiri aad baan kaaga mahadcelinayaa taariikhdaas noo soo bandhigtay gudoomiye gabagabadii qurba joogtu barnaamijkan aad baa loo daawadaa xeebtii waa u jeedaan quruxdeeda waa u jeedaan waa maxay baaqaa ugu dambeeya u diraysa bismillaahi raxmaani raxiim anigu waxaan qurba joogta baaq ugu dirayaa sidii uu yidhi adeerkay nuur cali qorf allah u naxariistee dhul shisheeye dheef ma leh hameen dhixitin mooye war dhulka aad leedihiin dad baa dhistay dad baa quruxsaday dad baa halaagsaday dad baa horumarsaday dhulkiinnii waa kan barwaaqada iyo nimcada iyo quruxda ilaahay uu dhigay ka faa'iidaysta nin walba uu ka qayb qaado horumarkiisa nin walba uu ka qayb qaado dib u dhiskiisa nin walba uu ka qayb qaado amni suguddiisa nin walba uu ka qayb qaado difaaciisa nin walba waxa weeye maanta waxa weeyaan wax ku darso dhumanayo waa dhulkaagii baan leenahay waxa weeye haddaynaan isugu tegin dhulkeenna oo aynaan inagu dhisin cid inoo dhisaysa lama arko haddaynaan inagu qurxin cid inoo qurxinaysa lama arko haddaynaan inagu maalgashan cid inoo maalgelinaysa lama arko haddaynaan inagu horumarkiisa iyo wanaaggiisa ka wada shaqayna cid inoo ka shaqaynaysa lama arko marka waa dal dhis dhammaanteen aynu noqonno dalkeenna aynu dhisno xooggeenna iyo xoolaheenna iyo dhaqaalaheenna iyo aqoonteenna nin walba waa inuu yimaadaa waqtigiisa waqti ka midana u soo huraa aqoon-yahanada iyo injineeradu waa inay yimaadaan dhisaynkii lagu dhisi lahaa iyo sidii loo horumarin lahaa inay keenaan maalqabeenku inay yimaadaan oo hoteello iyo biijaj ay ka dhisaan waxaan rajaynaynaa inaan barwaaqo iyo maal fara badan iyo faa'iido fara badan aanu ka heli doonno aad baa u mahadsantahay Abuukar Cawaale iyo Somali Channel iyo barnaamijka daldis aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waqtigiina waa idinkaga mahadcelinayaa dadweynahana waxaan leenahay waxaan ku sugannahay waa Garacad Beach waa barnaamijkeeni daldis oo maanta idinkaga imaanayay oo mar walba boorigiya dhiirana geliya inay dadku dalkooda dhistaan oo boogahooda dheedaan aad baan ugu mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka gudoomiyaha gobolka Mudug dhalinyarada kale oo barnaamijka naga soo qayb gashay iyo runtii boqolaalka qoraal oo dhinaca social media da iska soo dabadhacay markay xeebta arkeen mid iyo laba haddaan fursad siiyo xamdi jaamac cali oo magaalada Gothenburg joogta waxay tiri ogay astaghfirullah meesha qurux badana hadda aad mahadsantahay inaad reer Mudugtaada abtirsatay ayaan caligaas oo joogta dalka Mareykanka magaalada Minnesota waxay tiri ma sha Allah xeeb aad u qurux badan ayaad soo bandhigteen Cawaale aad baa kaaga mahadcelinayaa barnaamijyada dhiirigelinta mudan Ahmed
محمد يوسف من يابلس وحيري وحنا هلكن كسلام يا مرتدى برنامجك وحنا آد سلام يا قدوميها قبل كمدك محمد يوسف تجي وأنا كنت المام كرو قدومياشة ومر والبا سحي النما يكرتي يفنان له ودي رجلية ضدك يدل كانوا وشقية قدوميها أمام ببلغ لا يقسي آد بعد ما سنتين كنت رنتي مو ذا كرو وأنا كقول رعسنا رنتي فرداس قدوميه إنه تدالي ومر والبا كهولية يدل يدك وما أنت سنكسو كوبينا أنت كانوا كل متونا وضل لسات سومالي جانل دوت تي في الحرو مركزتا يميل كستا وقلبتا يحبت قراعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته